بسم الله الرحمن الرحيم. ودكتور عبد الكريم أحمد محمود كنا تخصصي قلينada iyo daweynta cudurrada haweenka. waxaan jecelahay inaan maanta ka hadlo arin aad iyo aad muhiim u ah. waxaa jiro dad badan oo la qalay isla markaana laga suuxiyay dhabarka ama qaarka dambe, isla markaana ka cabanaya madax xanuun joogto ah ama aad u badan. madax xanuunka noocaas ah waxaa la yiraahdaa post-dural puncture headache. qofku markuu la kulmo xaalad noocaas ah oo madax xanuun noocaas ah uu qabto, waxaa loo baahan yahay inuu helo nasiino badan, waxaa loo baahan yahay inuu helo cabitaan badan, waxaa loo baahan yahay inuu qaato caffeine ama coffee. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inuu qaato dawooyinka loo isticmaalo xanuun joojinta ama madax xanuunka. laakiin waxaa jiro xaalado gaar ah oo aad u daran oo dadka ay u baahnaanayaan inay yimaadaan isbitaalada si loogu sameeyo epidural blood patch wax la yiraahdo. fariintan hala gaarsiiyo dhammaan dadka la qalay ee dhabarka laga suuxiyay ee ka cabanaya madax xanuunka noocaas ah. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.